waaqa wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan caawa ku eegi doono qaaliladan oo jacayl u qaaday mursal muuse islamarkaana ay qarso weyday jacaylka ay u qaaday fanaanka gobolada waqooyi kasoo jeeda gaar ahaan magaalada Hargeysa. fanaankan lagu magacaabo mursal muuse ayaa fanaanada qaaliladan waxay u qaaday jacayl xad dhaaf ah islamarkaana ay qarsan weysay. barnaamijka guud ahaantiisa wuxuu caawa ku saabsanaan doonaa kulankaasi iyo barnaamijka oon ku falaqay doono jacaylka ay qaaliladan u qaaday mursal muuse. balse inta aan u gudagelin daawadayaal muuqaalka oo faahfaahsan, halkani waa Galaangal News. haddii aad ku cusub tahay channelkayna tahay markii kuugu horeysay, fadlan subscribe saaro calaamada gambaleelkana iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena iyo xogaha aan baahino. fanaanada qaaliladan ayaa jacayl xad dhaaf u qaaday mursal muuse kadib markii dhawaan ay qaaliladan qadka telefoonka kula hadashay mid ka mid ah taageerayaasha ama fanaaniinta ka agdhow qaaliladan ka agdhow aan dhahe mursal muuse, islamarkaana ay u sheegtay inay si aad uga heshay fanaanka lagu magacaabo mursal muuse, islamarkaana ay jeceshahay istiilkiisa, socodkiisa iyo intaba dhaqankiisa ay jeceshahay, islamarkaana ay mar uun ku fakarto inay la wadaagto nolosha. waa sida ay qaaliladan u sheegtay mid ka mid ah dadka sida aadka ugu dhow mursal muuse. qaaliladan ayaa u muuqata mid booska ka riixanaysa fanaanada kale ee lagu magacaabo Hodan Cabdiraxmaan oo hadda ah marwada koowaad ee fanaanka mursal muuse hadda la joogta ama la nool. mursal muuse ayaa horay qadka dhexe wuxuu kala ciyaari jiray fanaanadaasi hadda aad u jeedaan sawirkeeda ee lagu magacaabo Qadra Salima, islamarkaana uu hadda qadka ka saaray wuxuuna booskii hore gashaday fanaanada lagu magacaabo Hodan Cabdiraxmaan oo hadda ah ooridiisa. qaaliladan ayaa u muuqata mid si aad u ciriirsanaysa booskan islamarkaana ka riixanaysa Hodan Cabdiraxmaan, balse lama oga sidii arrintani ku saameyn doonto mursal muuse iyo sida uu arko. sidoo kale mursal muuse ayaa la sheegay inuu si aad u danaynayo xiriirka qaaliladan, ismarkaana laga yaabo inayba u soo jeedo dhankaasi magaalada Muqdisho, islamarkaana uu danaynayo inuu xiriir la wadaago qof ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan fanaaniinta ku sugan magaalada Muqdisho ama xiriirka la leh kuwa Soomaalida ah. mursal muuse ayaan loo ogolayn inuu xiriir la yeesho islamarkaana uu ka tirsan yahay xidigaha geeska, iyadoo kooxdaasina ay mushaarka siiso xukuumadda ama maamulka Somaliland, islamarkaana amarnaba loo ogolayn inay guursadaan qof ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. waxaana sidoo kale la sheegaa inaysan maamulka Somaliland aqbali doonin in kooxda xidigaha geeska qof ka mid ah uu xiriir la sameeyo fanaan ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, islamarkaana uu la wadaago nolol. Somaliland ayaa sharcigeeda wuxuu qorayaa in qofkii guursanaya qof ajnabi ah waa sida ay iyagu aaminsan yihiin qofkii guursanaya qof ajnabi ah waa sida ay iyagu aaminsan yihiin inuu soo wargeliyo dowladda Somaliland ama maamulkaasi sida ay sheegeen ama sharcigoodu uu dhigayo. waxaan hadda idin maqashii doonaa codka qaaliladan ay u soo duubtay fanaankaasi lagu magacaabo mursal muuse iyo sida ay qaaliladan u aragto xiriir ay la wadaagto mursal muuse. waxaad hadda ku soo dhawaataan codkaasi qaaliladan ay mursal muuse uga codsanayso inuu la sameeyo xiriir jacayl, islamarkaana ay isku soo dhawaadaan booskana uu ka saaro fanaanada lagu magacaabo Hodan Cabdiraxmaan. bal ila dhageysta codka qaaliladan. maxaad ka og tahay fanaanada caanka ah ee qaaliladan? bal haddaba ila yara dhuux qisadan aan horeba loo arag. qaaliladan ayaa shaqayl inaba aan caadi ahayn u soo bandhigtay fanaanka naagaha badani ku muransan yihiin, taasoo ay tidhi qaaliladan aniguna carafkayga aan qaado, bal ila dhegeyso horta cod sira oo laga helay fanaanadan caanka ah. qaaliladan oo aan laga filayn arrintan ugubka inagu ah ayaa cod sira laga baahiyey, waxayna ballan ku qaaday inay mursal muuse u bandhigi doonto jacaylkeedan. haddaba sheekaa ahayd tukihii horeba dablowaa, halka ay qaaliladanna ku meeraaraysanayso
dhul habaasa oo laga guuray ama geedi meel u maray oo raadkiisa dabayshu aastay. haddaba qaaliladan talow boos lagu muransan yahay ma heli doontaa oo ma hantiyi doontaa? bal fekerkaaga adoo cabiraya horta ila yara dhegayso muuqaal kale oo sir ah oo laga duubay qaaliladan. sababtoo naagiisa badan anigana tarabba ma sarahan marka waxaan jeclahay in ila soo xariirtid haddaad aragtid qofkaan codsi kuusoo dhiibanayso. qaaliladan oo sii wadata codkii sirta ahaa ee laga duubay ayaa waxay tidhi wuu wanaagsan yahay ninka naagaha badan lihi, waayo markuu mid ay isqabsadaan ta kale ayaa ka faa'iidaysanaysa. aniguna sidaa aawadeed ayaan u sheclaaday ninka naagaha badan ku muransan yihiin inaan aniguna ku saddexeeyo oo aan qaybteeda ka qaato qayb lixaadle si aan u helo nin naaga badani ku muransan yihiin. waa arrin aynaan hore u arag, weliba inagu cusub. qaaliladan oo u bandhigi doonta mursal muuse taana kamaynaan filayn, laakiin shacayrku waa wax jira waana jeclaan kartaa. bal aynu ka sugno halka ay ku aroortaye kaga soo noqoto mursal muuse. dhammaantiinba aad ayaad u mahadsantihiin shanalkeennana subscribe saara. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba. haddaba daawadayaal waxaad dhegaysateen barnaamijka iyo codkii qaaliladan oo dhammaystiran. waxaadna hadda laga yaabaa inaadan si fiican weli aadan u fahmin ujeedka qaaliladan. sida aad ku dhegaysateen codka qaaliladan ayaa wuxuu ahaa inay qofka naagaha badan ama fanaanka naagaha badan ay ka bannaan yihiin jaanisyo badan, islamarkaana midba midda kale ay ka reexanayso booskeeda. mursal muuse ayaa hadda u muuqda fanaan lagu hirdamayo, ayna ku kala tartamayaan fanaaniintii soomaaliyeed ee magaca lahaa ee la yaqaanay ee weliba kasoo jeeday koonfurta soomaaliya. qaaliladan ayaa hadda ka hor waxay guursatay dhowr fanaan oo uu ka mid yahay liibaan jigjiga oo ay kala tageen, balse waxaan la ogeyn codsigan cusub ay u dirtay mursal muuse siduu uga soo falceli doono mursal muuse. waxayna dadka qaar leeyihiin waxaaba arrintan laga yaabaa inayba ku kala fogaadaan mursal muuse iyo hodan cabdiraxmaan, oo ay hodan cabdiraxmaanba masayr dartiis uga tagtaba mursal muuse ama ay hilfaha u qaado. mursal muuse ayaa hadda waxaa la leeyahay wuxuuba kusii jeedaa carigaas maraykanka, oo waxaaba u dacwoonaysa ama qaadaysa fanaanadiisa ama xaaskiisa hodan cabdiraxmaan. qaaliladan ayaa iyadana waxaa la leeyahay intay mursal muuse gey doontaa nairobi ayayba joogtaa oo qaxooti ku tahee. dadka qaar ayaa arrintan si kale uga falceliyey. waxaan anakuna qiimeyn doonaa sida adinka aad u soo aragtaan iyo sidaad uga falcelisaan. wixii aragti aad ka qabto si aan ula wadaagno mursal muuse iyo qaaliladan iyo dadka kaleba aan ugu bandhigno fikradiina iyo commentiga noogu soo qora. haddii aad muuqaalkan daawanaysana fadlan like saar, sheerta ku qabo, subscribe-ta hana hilmaamin, calaamada gambaleelkana furo si aa ula socoto xogihii ugu dambeeyay ee aan baahino, una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena, ulana socoto wax walba oo ka cusub caalamka. masaal media waa shabakad warbaahineed oo madax bannaan. waxaan markasta awoodda saari doonaa inaan idiin soo gudbino barnaamijyo xiise leh oo idin raaligeliya. fadlan mursal muuse iyo qaaliladan ayaan gambar gaaban ugu fadhinaa iyo siduu mursal muuse arrintan uga falceliyo. waa bahda masaal media oo mar kale idin leh waa mahadsantihiin, daawasho wanaagsan. gobannimadu hoyday ilma gabax ka siisay bubka soo gurteeno ilkii gaboobiyo caradii u geysoy cadowgii qabteene ilkii gaboobiyo caradii u geysoy cadowgii qabteene ilkii gaboobiyo caradii u geysoy
cadowgii qabteene